السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي سود وهذا ملك صدفها عالم كتكتشوكتان ومع محمد شامعي كورس كي نسعد برنامج كويك بوك أونلاين waxaan rajaynayaa casharkii kan ka horreeyay waxaan ku soo kala tagnay iyadoo khasnadeena waxa la amal banki ay $7,000 minus inaga tahay sidee baan u xalinaynaa haddaba waxaa jira badhan dhan oo la yiraahdo transfer money ama transfer fund wala transfer money oo dooran kartaa lacagaha kaliya loogu talagalay inuu kala wareejiyo journal entry aan ku soo baray waad ka sameyn kartaa shaqadaas oo konka amal bank iyo khasnada waad kala wareejin kartaa waa anay hore ku soo baray laakiin kaasi waxa loo aadaa waaweynka ayaa la waaweynka yani waxyaabaha halkan meelaha ka soo lagu xalin waayo ayaa la aadaa journal entry marmar laga yaabo shirkadda inay ka dhacaan sida fixed asset guurta oo kale sida hantiyaal shares cancel oo kale sida hantiyaal share la noqonayo kale iyo wixii la mid transfer fund marka laga hadlayo hadaba waa badhan shaqadiisu way tahay bangiyadaada inta badan ay u saameeyay wixii khasnadaha ayuu aad u quseeyaa isagu wixii cash ah bangiyada ayuu quseeyaa marka lacagaha la kala wareejinayo pluska wad garanaysaa ayaad ku dhufanaysaa shaqo badan meelaha ka soo qabanay transfer mail-eeda ayaad ka baaraysaa dabadna information-kaaga ayaad gelinaysaa waba intaas u keliya anoo casharka sharaxin ayaad samayn kartaa intaas laakiin aan ku tuso ku taabsiyo shaqadan xagga ka dhaxaysaa laba bangi ayay saameynaysaa oo asset-kaaga guud ay saameynaysaa laakiin 97,000 ee shirkadu leedahay waxna kuma darsamayaan waxna kama go'ayaan labada un bay saameyn doontaa waxaan tagayaa newgaasaan tagayaa journal waxaan leeyahay transfer waa halkan u yaalla waa qaybta bangiyada u yaalla transfer ayaan ku dhufanayaa transfer markaan ku dhufto halkan wuxuu leeyahay transfer funds from yani fundka ama lacagta xaggay taala xagga laga qaadaya ka soo qaad waxaan leeyahay khasnada lacagtu taala khasnada markaan qoro uu soo qabtay waa kaas uu soo qabtay $32,000 baa kugu jirta waa sax intaas aan ku ogeey transfer fund to xagee la rabta lacagta la geeyo waxaan leeyahay niyo amal bank ku wareeji imisa ayaa rabtaa in lagu wareejiyo amal bank 7,000 minus amal bank marka ugu horeysa maxaa rabtaa marka aan idhaahdo 7,000 oo minus iyo 10,000 oo igu hadhaayaan rabaa marka maxaan ku qoriyaa $17,000 ku wareejiyo aan leeyahay salaam calculator qaado kala jaro maxaa dhacaya halka waa inay ka go'daa $17,000 halkana 7 minus inta baxdo 10,000 igu soo hadhaa waaba intaas oo kaliya halkan intaan lacag ku qoray memory memo wixii discrete for finance ku qoraysa save and close maskornay ama save and new waa save and new waxa kala ma waa daaqadan in save gaar daaqad cusub ay soo saar u save garay isla daaqad cusub isar wax kala meel qabanaysa aan iska xiro aan sheegarayna waxa dhacay amal banki waa tan $10,000 baad igu jira khasanadeedii maxaa ku jira $15,000 soo jeedid lacagtii guud waa sidii isma bedelin qaybtan hoosena shaqada kama dhicin ma saameyn ma ay saameyn tusaale kale aan ku siiyo waxaan leenahay new transfer waxaan leeyahay khasnada ayaan lacag ka qaaday imisa ku jira khasnada waxaan leeyahay $15,000 ku jira maxaad xagee u diraysaa waxaan leeyahay daabshil bank baan lacag ku wareejinaya waa inaga hore u samaysanay daabshil bank waa zero hadirto imisa geynaysaa $5,000 baan leeyahay ku wareeji dabadna save and new waa intaas kaliya aan daaqadan iska xiro haye hadhay amal bank maxaa ku haray $10,000 daabshil bank ma soo galay meesha $5,000 khasanadeedii maxaa ku jira $10,000 waa kaas hadda labadan hoose way hawsha saamaysa khasanadeedii daabshil bay saamaysa marka qaabkaas ayaa loo kala wareejiyaa amal baa daabshil ku wareejin kartaa daabshil baa amal ku wareejin kartaa everything transfer money ama transfer fund ardayow badhankaasna shaqadaas muhiimka ay ku qabtaa intaas ay ku soo ururinayaa guul baan ku rajaynayaa ballankeena wax baro shaqayso waarmaysi warakaaro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh